wareegtay geeridii abwaan mujaahid macalin maxamed xaashi dhamac gaariye ayaa lagu qabtay xalay magaalada Hargeysa. xuskan barodiiqda oo ay soo qaabisay shirkadda daabacadda casriga ee Sagaljet ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro hogaanada xisbiyada qaranka abwaan iyo boqolaal kamid ah dadweynaha caasimadda Hargeysa. ugu horeyn munaasabadaasi xuska barodiiqda ah waxa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda daabacadda Sagaljet Cabdi Yuusuf Aar oo iyadu lahayd qabanqaabada iyo maalgelinta iyo daabacadda labada buug ee ka waramaya taariikhdii iyo suugaantii abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye. ugu horeyn gudoomiyihii isagoo ka waramaya waxyaabaha ku kalifay daabacadda iyo qabanqaabada xafladan barodiiqda ah waxa uu waqtigii uu geeriyooday marxuum maxamed xaashi dhamac gaariye abwaankeeni weynaa waxaynu halkan u fadhinaa xuska sanad guurada koowaad oo aan runtii ku daahfurayno sidoo kale laba buug oo laga qoray marxuumka oo mid uu ahaa maansooyinkiisii kaasoo ah buugga la yidhaahdo hagar laawe iyo buug kale oo laga qoray isaga aqoon-yahan Boobo Yuusuf Ducalo isagoo isku soo duubariday tifaftirina labada buug ee abwaanka uu ka qoray ayaa si qoto dheer uga waramay muhiimadda uu buugan u leeyahay. waa abaan aynu celinayna macallin gaariye oo dadka iyo dalkaba aad ugu soo dagaalamay naftiisii qaaliga ahayd oo huray maasooyinkiisii mid ka mid ah ayuu wuxuu ku odhanayay isagoo ka sheekeynaya kaalintii uu kaga jiray horumarkii iyo xoreyntii dib u heshiisiintii hilinkaan iftiinshaana ku hurushooba. xuska waxaynu ula jeednaa inaynu macallin gaariye si fiican oo u qalato sii sagootino marafraadka waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo hawshan ka qayb qaadatay. gudoomiyaha xisbiga talada hay'ee kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa isna ka waramay taariikhdii abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye waxaanu sheegay inay ilaa yaraantoodii isku fasal ay ahaayeen marxuumkan uu ahaa mujaahid macalin iyo abwaan ka baxay ummadda reer Somaliland. inta halkan fadhida arkaayo waxay kala ismid ahaayeen oo uladan wada qoray oo ay isaga fadhiistaan anaa caawa joogaalka Boobo Yuusuf Ducale laba kalaas بابا لا كلاس من الوري أحمد لا كلاس من الدنيا ترى واحد كنا ضايرنا أتكلم واحد كنا ضايرنا تبشعيلك واحد كنا أتكلم ديرانت هي الرشاقة wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwa Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna halkaasi ku soo bandhigtay gabayo uu lahaa marxuumko oo dadkii xafladan ka soo qayb galay aad u soo jiitay dareenkooda waxaanay sheegtay gaariye inaanu ahayn abwaan oo kaliya ee uu ahaa mujaahid ka qayb qaatay dib u xareynta dalka Jamhuuriyadda Somaliland. munaasabadan barodiiqda ah waxa goobjoog ka ahaa caruurtii Allaah u naxariista marxuum maxamed xaashi dhamac gaariye hodan maxamed xaashi oo ku hadlaysa afka qoyska reer maxamed xaashi dhamac gaariye waxay u mahadnaqday cid kasto ka qayb qaadatay qabanqaabada xafladan iyo dadweynaha waqtigooda u soo huray ka soo qaybgalka munaasabadan waxa sidoo kale ka hadlay tiro kamid ah abwaanada dalka kuwaas oo halkaasi ku soo bandhigay suugaan ay kaga hadlayaan noloshii dhabta ahayd ee abwaan gaariye kuwaas oo ku tilmaamay inuu ahaa halyeey ka baxay ummadda reer Somaliland. wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xukuumad ahaan ay u diyaar yihiin inay ka qayb qaataan xusaska noocan oo kale ah ummadda reer Somaliland u soo jeediyay in tacabkii gaariye laga warhayo inuu halyeey qaran noqdo uu mutaystay uu soo halgamay uu soo kifaaxay wuxuu inaga mudan yahay inaynu inaguna markaa muunayno.